دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت سمائي دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت سمائي ما زلت أحتضن السلاح بقبضتي أفلا ستغمض أعين الجبناء أفلا ستغمض أعين الجبناء يا أمة الإسلام دين محمد هز الملوك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaan bilaabaynaa dariskii toddobaad ee ku saabsiisan tataarka. waxaynu hore uga soo warannay taariikhdii tataarka qaybtii ku saabsiisnayd addawla alkhawarzimiya iyo sidii ay u jebiyeen ee uga guulaysteen. waxaynu kaloo soo marray dawla alcabaasiya iyo sidii ay u jebiyeen. waxaan kaloo soo marray addawla alayuubiya fadla naamusa. waxaynu hore uga soo warannay dowladihii ama dowladdii ballaadhnayd ee tataarka iyo dhibaatooyinkii ay u geysatay dowladdii islaamiga ahaa iyo siday u soo jebisay. waxaynu soo gaadhnay markaa 3 dowladood oo waaweyn oo ka mida dowladihii muslimiinta ahaa oo min jayna dacalkiisa ilaa iyo ghaza, magaalada falastiin maanta ee ghaza laysku haysto, ilaa halkaasuu tataarku soo gaadhay. intaa wuxuu jebiyey markaa 3dii dowladood ee ugu waaweynaa ee meesha ka jiray oo ah khilaafa alcabaasiya, xagga shishana ay kasii xigto addawla alkhawarzimiya, dhanka sokana ay ka xigto addawla alayuubiya iyo wixii ka hadhay. waxaa la soo gaadhay markaa inaan ka warramo qaybihii ugu dambeeyey dagaalada koowaad oo ku saabsan duwalkii mamaaligta la odhan jiray. mamaaligtu waa dowlad masar ka dhalatay dabeetana ballaadhatay. dowladdaasi inta badan taariikhyahanada muslimiintii wax badan kama warramaan, waana laga yaabaa sababo badan inay jirto oo ay ka mid tahay siduu doctor raghib asarjani tilmaamayo casrigoodii oo tiro badatay dowladaha yaryar ee muslimiinta ahi oo qofka taariikhyahankaa ay ku dhib badan tahay inuu cusuurtaasi si fiican uga wada warrami karo. bale wuxuu tilmaamayaa maalan raghib asarjani wuxuu leeyahay almamaalik albaxriya, mamaaligta inta badan 2 qaybood baa loo qaybiyaa. dowladdii mamaaligta la odhan jiray 270 sannadood wax ku dhadhow bay talinaysay. qaybta hore waxaa la yidhahdaa almamaalik albaxriya, waa qaybtooda labaadna waxaa la yidhahdaa almamaalik alburjiya. waxaan rajaynayaa inay 50 sultaan wax dhaafay lahaayeen marka taariikhdaasi 200 iyo intaasa la tilmaamo. qaybtan hore ee la yidhahda almamaalik albaxriya waxa uu leeyahay doctor raghib asarjani waxay telinayeen 144 sannadood, laakiin waxaan rajaynayaa taariikhyahanada kale inay ku tilmaamaan 130 inay tahay, 136 meelaha taasaanay u dhowdahay. 648 bay bilaabmeen. koodii ugu dambeeyey wiilkii yaraa ee xaaji shacbaan la odhan jiray 684 ayaa kursiga laga riixay. dowladda almamaalik albaxriya la yidhaahdo ee 136 sannadood talinaysay Raghib Sarjani wuxuu odhanaya ilaa 29 baa soo maray madaxa
laakiin taariikhyahano kaloo badani waxay tilmaamayaan inay 7 ahaayeen haddii shajaratu dur islaantii maamulka bilowday haddii lagu darano iyana boqorad laga dhigana waa 8 bay noqonayaan 29 ama 8 madaxda ah Raghib Sarjani wuxuu leeyahay 22 ka mid ah 12 waa la dilay 12 waa la casilay that means 22 nin oo madaxda ka mid ah ayaa 10 waa la dilay 12 waa la casilay xataa dawladii ka dambeysay al-mamalik al-burjiya kama fiicneen iyaguba waayo waxaad oran kartaa 9 ka mid in kasta ay waqti dheer taliyeen 130 sanadood ku dhow haddana 16 ka mid 9 sanadood bay xukumeen 9 sano gudaheeda ayaa 16 sultaan isbedeleen dawladda al-mamalik maadaama salaatiinteeduna tiro badan tahay taariikhyahanadu inta badan wax badan inaanay ka sheegin bay u badan tahay mustashriqiinta iyagu maba jeclo oo dee nimankani 2 qarni ama 3 qarni waqti ku dhow ayay labadii quwadood ee waqtiga muslimiinta ugu dhibta badnaaba hortaagnaayeen dawladdan mamaaligta la yiraahdo maxay kaga gadisantahay duwalkii aynu hore u soo maray waxyaabo badan bay kaga gadisay waa dawlad askareed asaakir sooma maqashaan waa dawlad askariyeed oo xoog lagu kala qaado madaxnimada oo waxaan aan sheegayo dhabeed dil iyo madaxdoo la iska casilaydani waa inqilaabaad bay ku wada dhaceen waa inqilaab askari marka inqilaabka ama waa la dilayay kan hore ama waa la khalcinayo xabsiga loo diray ama waa la reebay siday ku bilaabmeen waxaan jeclay intaanan ka waramin dagaaladii ugu adkaa ay la galeen tataarka waa nimankii jabiyay horta tataar goobtii koowaad ee dib looga soo celiyo waa halkii iyagu ku hakiyeen waqcatu ayni jalut tataar dib hore uguma socon intii damba markaa la isku haystay iyo wixii dib ka dhacay nimankaasi tataarka soo jabiyay haddaan taariikhdooda dib ugu noqono waayo waqcadda ka warankeedu wuxuu ku xidhay inaynu duruufta fahamno duruufta inaynu fahmnaana waxay keensanaysaa dariskeena maanta oo dham inuu muqaddamo u bato dariskan maanta ka warramay oo dham inuu muqaddama lihada alwaqca noqdo muqaddamadani maxay ku saabsantay dawla al-ayubiya horeynu soo sheegnay 8 sanadood bay talinayeen salaaxdiin al-ayubi 20 sanadood ayuu isagu noolaayo maamulayay markuu geeriyooday wuxuu ka tagay dawladaad u ballaaran oo Masar iyo Sham iyo Xijaaz iyo Yaman iyo Libiya qayb kamid ah iyo Noobiyiinta dhulaad u ballaaran dawlad islaam oo ka talinayso salaaxdiin ka tagay isla markaana uu xoreeyay Bayt al-Maqdis laakiin isaga gadaashay ragii yimi madaxnimadii baa la isku dilay waa la inqilaabay waa la kala riixday 60 sanadood bay ayuubiyiintu gudahooda istilayeen ayuubiyiinta 60 sano istilayay waxay u bateen inaanay xataa wax kasto ay soo adeegsan karaan inay soo adeegsadaan oo ayuubiyiinta qaybo kamid ah waxay soo kaxaysteen crusadeski ama dawladihii masiixiga ahaa ee muslimiinta la dagaalamayay ayay qaarkood soo taageersadeen oo iyaga iyo kristan iyo muslim wada socda ku wada duulayay dawlad yar oo kale muslima 60 sanadood ee dambe 10kii u dambeeyay aan wax ka tilmaamno markaa laga soo bilaabo 637kii Masar dawladeedii waxa qabsaday ninkii la oran jiray al-Malik Salih نجم الدين أيوب الملك صالح نجم الدين أيوب وأي تاريخي هنادو كتريان إنه كمد يهيدد يوغي وفضل بدنا بعد صلاح الدين دولة الأيوبية وحي صامري ننكن إيا نمانك يا إسكور ريركا هايين إيا نشام إيا ميلاها كلا كترين إيا فلسطين قيبا كما دي أدولكا كتلين إيا وحاد نحمري دقالة وحوغايا 600 iyo 41 markay taariikhdu marayso yaani 4 sano ama 5 sano meelaha markuu xukunka haystay kadib ayay ayuubiyiintii Sham deganaa isu tageen dabeetana nasaarada ama kristanka qayb kamid ah taxaaluf bay la samaysteen waxay ku heshiiyeen in lagu wada duulo Masar
oo masar la qabsado oo boqorkaas la yidhaahdo najmudiin ayuub dowladda laga rido muqaabilkeedana nimanka nasaareed in la siiyo bayt almaqdis inay qaataan bayt almaqdis baanu ka tanaasulaynaa laakiin masar nala qabta bay lagu heshiiyey ninka la yidhaahdo najmudiin ayuub wuxuu isku dayay inuu isdifaaco ciidankiisa oo wato nimankii ugu caansanaa mamaaligta oo la yidhaahdo ruknadiin bebris alqaa'id ruknadiin bebris albunduqdaariy ninkii la odhan jiray uu hogaaminayo ayay dagaal wada galeen isagoo ninkaasi la socda maadaama ciidankiisu yaraana wuxuu isku dayey inuu adeegsado ciidamo culamada qaarkood ay ku yidhaahdaan murtasiqa bay ahaayeen mercenaries calooshooda u shaqaysayaal qoladan calooshooda u shaqaysayaasha lagu sheegayaa waa dawla alkhawaarzimiya dowladdii xoogga badnayd ee markii horeba tataarka daandaansatay ee muddada ay tataarka isdilayeen ee beriga fog ka talinaysay dowladdaa ciidamadeedii jabay qaybo ka mid ah firdhadkii soo galay masar iyo shaam iyo meelaha kan laakiin waa niman janana ah casaakira xirfad caskareed leh xirfadoodii caskariyeed bay ku baacmushtareeyeen markaa ninkan najmudiin oo ayuubiyiintii kale reer shaam iyo ay isu soo bahaysteen nimankii kristanka ahaa ee bayt almaqdis loo ballan qaaday wuxuu dareemay in laga xoog badan yahay dabeetana wuxuu adeegsaday nimankaa murtasiqada buu ciidankiisa ku soo darsaday 642 hijriyada ayaa waxaa dhacay mowqaca loo yaqaano mowqacatu ghaza oo labadaa xilfi wadaag najmudiin oo murtasiqada ayuubiyiinta murtasiqadaasi khawaarzimiyiintaana wata askartaasi calooshooda shaqshaqeysta iyo ciidankii nasaarada iyo ayuubiyiinta oo wada socdaa dagaalkaa ku kulmay dagaalkaasi alqaa'id bibrus si xooggan buu uga guulaystay xulafadiina waa la jebiyey xulafadaa jabkooda taariikhahan meeshan aan ku sheegi doono oo dhammi kuma dhaadhacayo waayo maaha inaynu ghazawaadkan ka warranno ee waa mamaaligtu say u samaysantuun inaan taarikh muujisa ka tilmaamo dagaalkaa jebintuu jebiyey waxaa la yidhaahdaa ilaa 30,000 oo askari buu ka dilay niman badan oo madaxa oo umaradii kristanka iyo kuwii muslimkaba lena gacantaa lagaga dhigay xulafadaana xoog baa loo jebiyey wuxuu u arkay najmudiin inay fursad tahay maadaama uu madax badanna qabqabtay oo ayuubiyiin iyo kristanba ka mid ah ciidankoodiina in badan uu ka laayay oo 30,000 oo askari ciidan gaadhaya uu ka takhallusay wuxuu u arkay inay fursad tahay dabeetana inuu bayt almaqdis xoreeyo oo shaam qabsado oo kuba dara buu u arkay awalatiisa duulimaad lagu ahaa wuu soo socday wuxuu xoreeyey bayt almaqdis 643 hijriyada ayuu xoreeyey maalintaas siduu u xoreeyey gacanta gaalada waxay dib ugu noqotay 1917 November 16 ciidanka ingiriisku markuu galay iyadoo weliba ay yidhaahdaan sababta ku galay waxay ahayd bay qaarkood sheegaan khiyaano macruufa uu sameeyey Mustafa Kemal Atatürk Turkiga ka talinayay dawla al-Ismaaniya dhisi doona dagaalkii koowaad ee dunida ayaa gaal dambe caga soo galiyay ugu xigtay sidoo xoreeyay ninkaasi loo yaqaano najmudiin ayuub 643 hijriyada wuu sii waday magaalooyin dhulkan ay imika haysato Israa'iil ka mid ah waa Casqalaan iyo magaalo Tabariya la yiraahdo dhulkaas buu xoreeyay isagoo meel fiican marinaya ayaa maadaama ciidamada la socda ay niman murtasiqa ahaayeen niman calooshooda oo shaqaystayaal ahaayeen umaradii ayuubiyiintan qolo ka mid ah ayaa lacag ka badan lacagtu odaygani siinaya u ballan qaaday dabeetana dagaalkii bay kaga baxeen kadibna isagaa bay ka hor yimaadeen oo way la dagaalameen halkaas waqacada wixii ka dambeeyay waxa bilaabmatay waxaan aynu hadda ku soconno ee ah nimanka mamaaligta la yiraahdo sidii ay ku yimaadeen natiijadii dagaalkaasi waxay noqotay
najmudiin almeliki saalex najmudiin ayub inuu qaato fikrada ah ciidan dambe oo murtasiqo calooshoodu shaqaystaayana inaanu kaxaysanin ee ciidan walaaga daacad isaga waa inuu helo ciidan lacagta daacad u ah inaanay ciidan noqonayn buu arkay kadib wuxuu bilaabay halkii khawaarzimiyiinta inuu ku bedelo niman la yidhaahdo mamaalik su-aashu waxa weeyaan haddaba man hum lmamaalik waxaynu ka warrami doonaa dawlad mamaaliki hogaaminayo oo tataarka jebiyey fikradday ku timina waa tatan maxaa la yidhaahdaa markaa mamaaligta aslu luga alcarabiya mamaalik waa jamcu mamluuk mamluukuna waa raqiiq ama cabd waa addoon siiba addoonka addoonnimo isaga lasoo qabsaday ee aan aabbihii iyo hooyadii addooma ahaan jirin ka aabbihii iyo hooyadii iyagoo addoonnimada ku dhashay kaa qin baa la yidhahdaa cabdigaas waa fuqahadu kan ay qinka ku tilmaamaan amaa kan isagaa la addoonsaday oo addoonsiga dagaalla lagu soo qabsaday aabbihii iyo hooyadii may ahayn laakiin taariikhda islaamiga ah ereyga af carabiga guud ma aha ee mamaalik haddaad maqasho inta badan taariikhda islaamiga waxay ku caanbaxeen niman asalkoodu addoomma ahaa oo ciidamada la qorto ciidamo marka dambe u noqdo dawladda tan kuwaasaa mamaalik ereyga la yidhahdo ku caanbaxay goor may bilaabmeen waktigan may bilaabmin ka hor bay bilaabmeen imaamu tabari raxmat ullaahi calayh wuxuu soo aroorinayaa fii taariikhi wuxuu ku soo aroorinayaa ciddii ugu horreysay ee adeegsata ciidan addoomma ah inay ahayd waktigii dawla alumawiya siiba nasr ibnu sayaar ninkii la odhan jiray markuu talinayey waa waaligii khuraasaan waa eeraan waqooyigeeda afghanistan waqooyigeeda ilaa taajikistan meelahaasi intaa waaligii ama govarnarkii ama barasaabkii uga talinayey dawla alumawiya oo nasr ibnu sayaar la yidhaahdo ayaa ahaa bay dhahdeen ninkii ugu horreystay mamaalik qorta oo 1,000 askari oo mamluuk u qortay dabeetana ciidan hub buu siiyey ciidan uu ku dagaalgalu noqday laakiin aakhirkii isaga iyo ciidankiisiiba waa la jebiyey dawla alcabaasiya waktigeedii siiba waktigii ay telinayeen labadii nin ee midna ma'muun loo odhan jiray midna muctasim loo odhan jiray oo ah 198 ilaa 227 ayay labadaa nin ee walaalaha ay telinayeen nimankaasaa waxay bilaabeen inay askar badan qortaan waayo cahdigii dawla alcabaasiya waxay bilaabeen laba qowmiyadood inay dawladnimada ka fogeeyaan nimanka carbeed iyo nimanka beersheeniska ah labadaa dawladoodba inay dawladnimada ka fogeeyaan si aan xukunka iyaga cidi ugu soo hungurayn maadaama ay labadan bulshood rabeen inay ciidannimada ka fogeeyaan waa inay keensadaan ciidamo kale oo markaa dawladdii muslimiinta ahayd ciidan u noqota waxay bilaabeen inay guutooyin askar ah oo addoomahaasi suuqa baac mushtarka laga soo iibsado inay soo ururiyaan siiba almuctasim bilaahigaasi waxay idhahdaan ciidamadiisa addoommaahi dhowr iyo 10 kun bay gaadheen bale baqdaad markay qaadi weydee dadkiiba ay suuqyada ku cidhiidhiyeen ayuu wuxuu u sameeyey magaalo caan ah oo isaga iyo ciidankiisuna ay degaan waa magaalada la yidhahdo sura man ra'a yacni magaaladan asamraa iminka la yidhahdo ee ciraaq ku taalla ee baqdaad u dhow asalka magaaladan waxaa loo sameeyey ciidankaas in la dejiyo waa qalcaadkii iyo meeshii uu dejiyey ciidankan isna boqortooyadiisii buu rartay meeshaasuu degay waxay u noqotay markaa ciidamadiisii oo atraak u badan qowmiyaddan turkiga la yidhaahdo oo uu isidhi aad dawladnimada kaga xoraysid carabtan iyo maxaa beershiyaankan iyo dadkan laakiin nasiib darra isna muu xorayn karine 20 sannadood kadib markay ciidankii qabsadeen iyo jannanadii iyo wixii boqorradiiba waxay noqdeen lucbo gacantooda ku jira mid ay dilaan iyo mid ay casilaan bay iyana ka dhigeen aakhirkoodii oo siiba mutawakil markay dileen 247 wixii ka dambeeyey
mamaaligtu wakhtigaa markaa laga soo bilaabo iyo wixii ka dambeeyey waxay noqdeen ciidan cusub oo ku soo biiray dowladihii muslimiinta ah duwal ila taabika maqashaan fulana taabika taabik ataabigtani waa ata iyo bik la isku daray labadan eray ee af turkiga ah ata waa bimacna alab bay yidhahdeen walmurabbi bikuna isaguna waxay ku tilmaamaan inuu yahay alamiir yacni waa dhasha umarada dadkii tababarayay ataabigtaasi waa nimanka taariikhda caanka ku ah ee markii dambe duwal ilatraaf xukumay ragga taqaaniin xataa dawla ayubiya raggay ka soo bilaabatay cimaadadiin zinki iyo nimankaasi duwal ilataabik bay ahaayeen markaan soo duuduubo ciidankan mamaaligta la yidhaahda oo intooda ugu badan waxaa laga keenay meeshan la yidhaha maa waraa'i nahr nahru jiixoon aynu hore usoo tilmaamnay waa webiga kala qaybiya dhanna turkmanistan iyo afghanistan dhanka kalena tajik iyo uzbekistan webiga dhex mara waxaa ka dambeeyay taarikhyahanadu maa waraa'a nahr ku tilmaami jireen halkaas baa laga keeni jiray cunsurkan turkiga la yidhaahdo atractani cunsurkaasi meeshay degaanka u lahaayeen waa meesha waana mantiqo dagaalku ku badnaa bay ahayd dad gaalo u badan samraqanda iyo farqaana iyo khawaarzim iyo magaalooyinka muslimiinta baa la keeni jiray waa la kala gadan jiray saalix alayub ninkan aynu rabno ee ciidanka cusub samaystay muxuu soo kordhiyey isagu wuxuu bilaabay fikradaha hore ka gedisan oo ah inaanu nin weyn askari qoranin wuxuu bilaabay isagu inuu carruurta iibsado carruurta yaryare suuqaa lagu iibinayo inuu soo gato carruurta markuu soo gatana inuu u tababarto ciidamadii ama dadkii la iibin jiray waagaa ugu badnaa horta dad asalkoodu turkiya ugu badnaa inkastoo laga helayay armeniyiin kuwa ah mongolians laftooda kuwa ah iyo yurubtan indhaa buluugale qaar ahba saqaalibada nimankii la odhan jiray yurubtan bari dee intaa waa laga xoog batay muslimiintu dhulkay qabsadeen bay ka mid ahayd waa la kala gadan jiray iyagana waxaasoo dhan oo la isku daro ayaa waxay noqdeen cunsurka ugu badan ee caddaanka ah ee addoomaha dadku iminka markaad addoon maqasho nin madow bay ka fekeraan addoomuhu berigaa nin cad bay ahaan jireen aad ba u yaraa addoon madoobi tira aada u yar bay ahaayeen cunsurkaasi wuxuu bilaabay markaa boqorka kani isagu inaanu gadanin ilaa kuwa yaryare carruurta ah mooyaane siiba dad aan muslimiin ahayn laakiin maadaama tataarkii dhul badan oo muslimiina ay qabsadeen oo carruur yaryar oo tiro badan leh ay gadeen dadkaa la kala gadanaya qaarkood waxaa iskaga jiray dad muslimiin ay dhaleen oo carruur yaryar oo muslima laakiin aan af carabiya waxaana ku hadal aabayaashood iyo dadkoodiina dadkii la laayay ay ka mid yihiin ninkani wuxuu bilaabay markaa kulliyaad caskariya oo cusub inuu samaysto oo lagu tababaro ciidamadiisaa yaryar ciidamadani waa carruurta tan inta aanay sinulbuluuq gaadhin qaangaadh inta aanay noqonin kow waxay yidhaahdaan waxaa loo dhigaa af carabiga markay bartaan baa waxaa la baraa qur'aanka markay bartaan baa waxaa la baraa mabaadi' alfiqhi alislaami walaadaabi sharciya fiqiga muslimiinta iyo adabka sharciga inta ay yaryar yihiin waxaa aada loogu ilaaliyaa salaada inay si fiican u tukadaan adkaarta sharciga ah inay qaybaan ninka mu'adibka ama mucallinkee taraingaraynaya hadduu khata yar ku arko wuxuu isku dayaa inuu tambiihiyo ilaa xad ciqaabaadka qaarkooda la mariyo carruurtaasi waxay kortaa markaa iyagoo carruur yaryar oo muslimiina oo islaamka jecel oo aqoon badan oo fiqiyana wata oo agtooda culammada iyo cilmigu ku weyn yahay waa culamada qaar baa waxay yidhahdaan waa sababiha casrulmamaalik ay u soo baxeen culamada maanta ugu caansan dunida alafzaadka taqaanin waa cusurtii mamaaligta raggii wax bartay yaa ka mid ah imaamu nawowi ibnu taymiya ibnu اlqayim ibnu jamaaca imaamu dahabi ibnu kasiir almaqrizi culamadan caanka ee taarikhdaa ku taqaanin waa casri lmamaalik casrigii nimanka ka nahda cilmiya baa faaftay baa la yidhaahdaa ibnu qudaama almaqdasi waxaasoo dhami waa casri lmamaalik raggii noolaa saalix alayubi markuu dadkan uu diinta iyo af carabiga waxan baro ee ay soo gaadhaan qaangaadhka ayaa waxaa bilaabata alkuliya alcaskariya markaa
markaas waxaa loo bilaabaa in la baro dagaalanka qaabka loo dagaalamo iyo askarinimo rasmiya iyo funuunta dagaalka kala nooca ah fardafuulka gamuunka ridistiisa seefta iyo ku dagaalankeeda mahaaraadka caskariga oo dhan baa markaa loo bilaabaa 3 shay baa la baraa marka kanna qaab dagaaleedka iyo sida loo dagaalamo iyo riyaada alquwa albadaniya iyo jidhka in loo dhiso iyo in la baro adkaysiga iyo mashaaqa iyo dhibta inuu adkaysan karaan yacni waxaa lagu yaqaanaa askari ayay galaan kuliyadda caskariga ee askarinimada loo tarangareeyey markay dhammaystaan darajo 3aad baa la geeyaa haddana darajada tan waa saraakiisha meesha laga soo saaro markay halkan soo gaadhaan waxaa la baraa umuur alqiyaada leadership maamul hogaamin iyo maamul iyo khudadka caskariga ee istaraatiijiga sida loo dejiyo mushkilaadka waaweyna caskariga hadday ku qabsadaan iyo sida loo xallilo iyo umuurta adag oo dhan sida loola dhaqmo yacni marka kan waxaa laga dhigaa qaada inay noqdaan hogaamiyeyaal jananno iyo wixii u dhadhow inay soo baxaan asal markaa waxa u noqotay mamaaligtan aynu ka warrami doonaa waa niman min carruurnimadoodii ilaa iyo jananno iyo umaro intay ka gaadhayeen tadriib ku filan la siiyey hadduu yahay mid diineed iyo hadduu yahay mid military iyo hadduu yahay mid maamul intaba waa rag soo qaatay xadkaa markay soo gaadhaan waxaa bilaabma nidaamu rutubkooda sida loo dallacsiinayo qaar firaq caskariya maamula oo dee xidigle labaale saddexle jan waxaa yaryar noqda qaar kor loo qaado ilaa xad la gaadhsiiyo maxay rutbadda amiirka ay gaadhi karaan amiirku waa nin mandiqo dhan xukuma ama meel dhan xukuma waa dad maamul ahaan maamul haya dhaqaale ahaan iqtaaciyiin oo dhul dhan la siiyo mamaaligtan waxaa kaloo loola dhaqmay islaamku ma yaqaano waxaa loo yaqaano tabaniga ilma aana dhalin inaad tidhahdo anaa dhalay ma yaqaano laakiin wuxuu yaqaanaa in qofka la korin karo isagoo magaciisa aan laga bedelin iyo wixiisa boqorradani siiba najmuddiin ayuub wuxuu la dhaqmay sidii carruurtiisa oo kale oo markuu raggan kuliyaadka ka soo saaray xero gaaruu dejiyey xeraduu dejiyey buu la degay meel la yidhaahdo jaziiratu rawda oo qaahiro ku taalla ayuu dejiyey webiga niilka dhexdiisa jasiirad yaro ku taalla halkaasuu qalcad uga dhisay isna gurigiisii boqortooyada halkuu u soo raray sidai carruurtiisoo kale ula dhaqmay xad bay yidhaahdaan uu cunnada la cuni jiray meeshay seexdaan jeegarayn jiray wax walba way iyana si dhabay u jeclaadeen oo nimankan suuqii nakhaasa iyagoo yaryar laga keenay suuqa dadka lagu iibiyaa laga keenay iyagoo yaryar haddana waxaa laga dhigay umaro iyo dee dad xawaashidii boqorka ka tirsan iyana markaas si fiican bay ula dhaqmeen boqortooyadoo aad bay u soo dhaweysay ciidankan mamaaligta la yidhaha marka hore saasuu ku samaysmay ninka la yidhaahdo najmuddiin 2 nin ayuu ciidamadiisa hogaamiyaal uga dhigay nin la odhan jiray farisudiin aqtaay iyo nin la yidhaahdo ruknudiin bibris 2daa nin ayuu madax uga dhigtay halkan markay marayso intaanan weli gaadhin meeshii aan u socday muqadamadan waxoogaa ku daro louis ataasic boqorkii la odhan jiray waxaa jiray yurub boqorradeeda wakhti ka mid ah ayaa boobabku aada u hungureeyeen dabeetana iyaga iyo boobabkooda wada socdaa waxaa la go-aansaday in muslimiinta lagu duulo xamlaad kala dambeeyey xamla salibiya alula aلثaaniya aلثaaliثa alraabica alkhamisa aلsaadisa alsaabica xamlaad taariikhda caan ku ah crusaderska nimankan la yidhahda weeyaan dagaaladii ay soo qaadeen dagaaladan yaa soo qaadayey boqorrada yurub richard kii la odhan jiray qalbulasad ee ingiriiska ka talin jiray philip augustus kii faransiiska ka taliyey maxaa la yidhaha frederica thanigii germany haysan jiray bahamoyo oo qubrus iyo sicily ka talin jiray dagaalkii shanaad ee ay soo qaadaan reer yurubka iyo crusadeska waxaa hogaaminayay boqorkii la odhan jiray louiska 9aad ee faransiiska louiska 9aad ee faransiisku wuxuu isku dayey inuu tataarka heshiis la galo in muslimiinta gamta loo joogsado laakiin waa inagii hore usoo sheegnay
boqorka tataarku inaanu cidnaba agtiisa inuu ku arkay inaanu ogolayn dabeetana waxaabuu ka xanaaqay boqor yaroo reer yurub oo waraaqu soo dirayo oo iska dhigaya qof macnalo buu ka xanaaqay saa daraaddeed wuu diiday fikraddii sulxiga ahayd hase yeeshee boqorkii masar haystay ee najmuddiin xanuunka tiibayda la yidhaahdaa ku dhacay wuu xanuunsaday luwiis wuxuu maqlay intan kale ayuubiyiintuna naf badan may lahayn ninkii ugu xooga badnaana inuu xanuunsanayo tataarkiina inay marayaanba baqdaad qabsadeen iyo waxaasi oo dhan ka soo tallaabeen dabeetna wuxuu is yidhi wallahi adna waad ka yara gaadhsiin karaysaaye masar iyo intaan iska sii qabso xamlad buu soo qaaday ilaa 700 oo doonyood buu soo kaxaystay ciidan xooggan oo qaarkood ay ku sheegaan 100 kun oo askari ciidan gaadhayuu soo kaxaystay wuxuu ku talagalay isna inuu masar gunta ka rojiyo wuxuu yimi meesha la yidhaahdo dimyad waa magaaladii ugu caansanayd markaa masaarida ee dekeda u ahayd ee baxrul abyadka ama mediterranean seaga kusoo jeeday dimyad ciidanka inta leeg iyo waxani marun bay soo galeen waxoogaagii askartii iyo ciidankii joogay waaba ka baqeen waa uga yaaceen magaaladii buu iska qabsaday halkii buu degay waa xamladii 7aad ee saliibiyiinta markaa alxamla asaabica weeyaan markay qabsadeen meesha tan ayuu boqorkii masar ka talinayay markaa najmuddiin ayaa wuxuu go'aansaday inuu dagaalamo weliba inaan qaahiro loogu iman inuu ka hor tago laakiin dadka si uu dagaalgeliyo wuxuu go'aansaday isagoo buka oo jiifa oo sariirta saaran in la qaado frontka la geeyo isagana ciidamadiisii wuxuu amray inay baxaan meel dhexe madiinadan almansuur la yidhahdo almansuura halkaas buu ciidankiisii keeyey oo kollayba wuxuu garanayay webiga niil inuu soo raaci doono marka inaan qaahiro la isugu imana dhexda inuu dagaalku ka dhaco wuxuu amray in la qaado oo meeshaa la geeyo saraakiishiisii ciidanka watay waa 647 baan rajaynayaa inay tahay marka dimyaad la qabsaday safar 20keedii labadiisii sarkaal ee mamluuga ahaa ayaa ciidamadana wata farsudiin aqtaay nin la yidhaahdo iyo bebris ruknudiin albunduqdaariy nin la yidhaahdo labadaasaa nin wata waa laba nin oo janana ah oo dagaalyahano khatar ah iyadoo khitadii caskariga la dhigayo oo uu rabo inuu isdifaaco ayaa waxaa dhacday tii allah timi shacbaan 15keedii ayaaba geeridu u timi boqorkii waddanka maamulayay waa nin boqoroo saalixa buu ahaabaa lagu tilmaamaa isagu waa ka ibnu taqari berdi ayaa wuxuu leeyahay low lam yakun min masaaxin sulطaani saalix najmuddiin ayub ila tajalludah cinda muqaabalati alcaduwi bilmansuura wahuwa bitilka alamraad المزمنة وموتها على الجهاد والذب عن المسلمين لكفاه ذلك ما كان أسبره وأغزر مروءته وعليه إن كان أتكيسيسي يدقالو شوقيسي والمسلمين تسكد يينو دقال قليو يصبر بدنديسي أيا كفلا بط المامية إلهي باوقنا كفلا تيين كلاه نين كان يوحى نين صالحة سيد تاريخي هندو قتل المامان musiibadii mar qura waxaa dhacday musiibada dadkii muslimiinta oo ah magaaladii horena in laga qabsaday dagaalkiina inuu mukadadhow yahay geesh xooggan oo boqortooyo wadataana inuu soo socdo boqorkii muslimiinta u talinayay dagaalka soo geliyeyna inuu dhintay weliba nasiib darrada joogtay kale markaasi say dadku u arkayaanna waxa weeyaan ciddii dhaxli lahayd ee boqortooyada qabsan lahaydna lama hayo boqorku markaa wuxuu qabaa gabadh shajaratu dur la yidhaahdo gabadha tani iyana waa mamluukad kale waa turkiyadna dadka badh baa yidhaha dadka badhna armiiniyad bay ahaayeen baa la yidhaha waa gabadh uu suuqa ka soo iibsaday kadibna uu xoreeyey kadibna uu guursaday inan bay u dhashay inankiina wuu dhintay gabadhaa shajaratu dur oo mamluukadiyana ah ayuu qabaa la socota laakiin waxay ku sheegaan gabadha tani
gabadh aad u caqli badan bay ahayd bay yidhaahdaan waa iron womankii soo maray taariikhaha muslimiintay ka mid tahay gabadha tani waxay go'aansatay inaanay geerida boqorka sheegin ay qariso oo waxay tidhi dhakhaatiirtiibaa waxay u diiday in cidi u soo gasho amarkaasay bixisay dhakhaatiirtiisiibaa waxay amartay bay tidhi inaan cidi u soo gelin wiil uu dhalay ninka kani oo aanay isku fiicnaan jirin aabbihii aanay iskuba fiicnayn oo tuuraan shaah la yidhaahdo oo ka taliya magaalo yaroo xisnu kayfa la yidhaahdo xisnu kayfa waa magaalo turkiga koonfurta bariya turkiga ku taalla waa webigan dajlabaa mara ilaa hadda waa magaalo jirta xisnu kayfa meeshaa la yidhaahdo ayuu ninkani boqor yar ka ahayoo ka talinayey kaasay farriin u dirtay ay leedahay aabbahaa dhimay kursigii boqortooyaduna wuu bannaan yahay xaalad khatarana waa lagu jiraa dhakso u kaalayo na soo gaadh waxay kaloo u yeedhay labadii janana ee ciidanka hoggaaminayey waxay ku tidhi war boqorkii dhimay dadkase in loo sheego diyaar uma yihi ninkaasaanu farriin diroo imanaya dadka hala dagaalgeliyo dagaalka si fiican u maamula labadan janana waxay qaateen bal wax waliba horta ha dhacaan inay dagaalka galaan oo aan dadku jabin sidii baa lagu heshiiyey waxaa dhacday waqacadda taariikhda muslimiinta caanka ku ah ee la yidhaahdo mawqicati almansuura magaalada mansuura la yidhahdo ee masar ku taalla ayay ka dhacday 4 dilqacda 647 macraka xooggan baa dhex martay nimankii nasaarada ahaa iyo muslimiintii laakiin waxay ku guulaysteen bixawli illaahi wa quwatih inay jebiyaan ciidankii uu watay luis ataasic khaarij almansuura waa la jebiyey waxoogaa ciidamo boqorku nin ka soo horreeyey oo ay taarikhyahanada qaarkood yidhaahdaan guushuu rabay inuu keligii qaato luiska uu ka soo degdegay wax kasta ha noqoto tafaasiisha kama warramayo waa la jebiyey haddana 10 maalmood kadib bay haddana hujuum kale ku qaadeen luis hujuumkii kale wuu iska dhiciyey wuu soo celiyey halkaa markay marayso ayaa waxaa yimid tawraan shaah xukumkii baa loo caleemo saaray dabeetana dadkii muslimiintana waxoogaa nasri horena waa heleen boqorkiina waa yimi waa ku farxeen dagaal cusub baa la takhdiidiyey waa dagaalada ugu waaweynaaye muslimiintu galaan baa lagu tilmaamaa mid ka mid ah 2 bilood kadib madiina farskuur la yidhaahdo oo iyana masar ku taalla berigaa hore tuulo yar bay ahaan jirtay oo shaarix shaam yaa la yidhahdo mise shaarix saam magacankaasi ay lahayd meeshaas ayaa dagaalkii kale ka dhacay dagaalka nimankii masiixiyiinta ahaa guntaa laga jaray ilaa iyo boqorkii faransiiska waa la qabtay boqorka laftiisaa gacanta lagu dhigay kadibna shuruud adag ayuu ku xidhay boqorka wuxuu yidhi waan ku sii daynaya boqorkii waa la soo qabtay ra-iisul wasaarihii ama wasiirkii ugu weynaa gurigiisa fakhrudiin ibraahim baa lagu xidhay kadibna heshiis baa lala galay heshiisku qodobo adag baa ku jira waxaa la yidhi 800 kun oo diinaar oo dahaba ayaad bixinaysaa 800 kun oo diinaar ee dahabka ah nusna haddaad kaash u dhigaysaa nusna wakti soo socdaad bixinaysaa waxaa kaloo intaa la socda wax allaaliya wixii aa maxaabiis hore u qabsateen muslimiina dufcada hore aa lacagta bixinaysaa maa ku soo daraysaana waa la soo daynaya waxa intaa kaloo la socda wax allaaliya wixii aan maxaabiis kaa qabanayna waa haynaynaa ilaa iyo dufcada dambe lacagta qaybta dambe installmentka dambe ilaa waktigaa ka bixinaysaan maxaabiistiinana waa la haynaya waxaa kaloo heshiiska ka mid ah 10 sannadoodoo soo socdana inaan wax dagaala la isku qaadin intii baa la aqbalay laakiin waa adduun aada u tiro badan 800 kun oo diinaar waxay u dhigmaan 3400 oo kiilo iyo dahaba yacni 1.4 tan
waxay u dhigmaan wax ku dhodhow 3.4 tan waa 3 tan iyo badh wax ku dhodhow waxa laga rabaa inay naqad hadda u bixiyaan 1.4 tan hal tan iyo badh wax ku dhodhow oo dahab ah oo naqada inay imika dhiibaan dee boqorkii baa xidhan kristankii waa isu tagtageen intii waa la soo ururiyey waa la keenay Louis Taasic waa la sii daayay magaaladan Caka la yiraahdo oo imaarad masiixiyiina ayuu dib ugu noqday halka markay marayso Tawraan ninkii la oran jiray Tawraan Shaah marka kan xoog buu isbidaysnaa boqortooyadii buu qabsaday taariikhyahanada qaar waxay dhaahdaan nin dabeecad xun buu ahaa siyaasadana kuma fiicnayn lafteeda guushii uu boqorkii Faransiiska ka guulaystay ee boqortooyadii uu qabsaday ayuu dadkii la socday umu aaba yeelin dadkii uu meesha ugu yimi kow islaantii boqoradda ahaa ee ku sintay meesha ee waxaas oo wanaaga u gashay wuxuu yidhi lacagtii aabbahay baad qarisay iminkada waa inaad soo saartaa hantidii aabbahay haddii kale waa kaa takhallusaya aad buu ugu hanjabay baa la yidhi nimankii guulahan waaweyn geystay casaakirta ahaa ee mamaaligta ahaana wuu iska ilduufiyey ama mas-uuliyaadkoodii buu wax ka qaadqaaday waxoogaa ciidana uu kala yimi xaggaasi oo watay ayuu rutabkii sare iyo meelihii sare ku taxday waxaa bilaabmay in la kala shakiyo markaa nimankii mamaaligta ahaa way ka shakiyeen ninka kan iyo dhaqanku wado islaanta lafteediina way shakiday dabeetana waaba la shiray waa maxaynu yeellaa waxaaba la ogaamiyey waar isaga laftiisa aan dil oo ka takhallusan hayna dhaafee waxaa caana taariikh ilmamaalik masaladan baynu sharxi doonaa waa inagii soo tilmaamnay markaynu duuduub ahaan sheegaynay 10 ka midana in la dilay boqoradii mamaaligta saalixiyada weliba qura 12 ka midana in la inqilaabay nimankan agtooda dilku wuu ku fududa sababtu waxay doontaa ha noqoto waa niman askarinimo ku soo koray dil iyo waxaan lagu traingareeyey waa dhan tarbiyada askarigu waa tarbiya jaafa waa niman dilku wax badan la sii ahayn waa niman askarigu wuxuu yaqaanaa umurta in la xasmiyo waa baasha hal la kala gooye ma diplomacy badan iyo siyaasad badan oo inta badan dadka lagu sii wadwado kuma fiicna waa niman haddana u arkay waxay dhahdaan mamaaligta taariikhdooda waxay caan ku noqdeen alqatl bishaki aw binnawaaya mar hadduu cadow ninku yaro noqdo aad ka shakidana inaad ka takhallustaa inay ku habboon tahay waana niman dee min dhallinyaronimada carruurnimadoodiiba askarinimadan lagu bilaabay markaa ninku hadduu isagoo dhallinyaro askarinimada galo qaabkanoo ku weynaado caqliya caskaraba uu yeeshaa inta badan oo ah inuu wax walba xooggaas uu ku taliyo sanad fiqiya ama sharciya ma jiro sheegaya boqorka manaasib kaa qaaday ama kaasoo yaro horjeestay ama caynkan in lagu dila ma jiro laakiin waxay u arkeen inay ninkan ka takhallusaan go-aankaasay qaateen dabeetana ninkan odayga ah waa dileen waa laga takhallusay 7 maalmoodba kadib maalintii uu ka yimi xisnu kiifa shawgeeridunbaa buu soo socday tala uma soconin 7 casho kadib isagana waxa lagu daray fi acdaad almafquudiin waa la dilay weliba dilkiisu dil aad u adag buu ahaa waxay dhahdaan wuxuu dhintay jariixan gariiqan xariiqan bay dhahdaan aw maxruuqan waxay sheegaan in la dilay nabarka warankay ku dhufteen wuu dhaawacmay markuu dhaawacmay buu ka cararay markaasuu minaarad fuulay minaaradii bay dab ku shideen markaasuu ku guftay bay yidhaahdeen wuu ka booday webiga niil buu isku tuuray markaasuu ku dhintay
deeta waxay yidhaahdaan jariixan isagoo ah dhaawaca oo gubtay oo haftay buu dhintay bay yidhahdaan kadibna meeshii baa loo tashada maxaa la samaynayaa marka halkan waxaa ka bilaabantay war cusub labadii kooxood ee shajaratu dur iyo nimankii askarta ahaa way iswaafaqeen laakiin meeshii firaaq siyaasiya yimi maxaa la samaynaya waxay bilaabeen in dawlad cusub la dhiso oo weliba dawladdaasi ay islaamtu madaxu noqoto waa fikrad aada u jadiida halkan dawlat ulmamaalik baan markaa ka bilaabaynaa mamaaligtan taariikhda intii aynu naqaanee hore dawlado badan baa adeegsaday oo طولونيينta nimankii la odhan jiray oo dawla alkhshiidiya oo dawla alfaatimiya oo dawlaadka qaarkood 400 oo kun oo askari bay wateen khshiidiyiintii oo kale 400 oo kun oo askari oo mamluuka buu haystay xoraastiisoo quraa 8 kun ahaan jirtay laakiin dawladaha hore la yaqaano oo dhan mamaaligtu kursiga sare may hungurayn jireen ee kolba boqorkii meesha qabsada bay dee taageeri jireen hadda waxaabay isweydiiyeen war meeshan nin ayuubi oo dhaxlayaa ma joogo kii yimina waatana waa laga takhallusay bal kursiga maynu inaguba isku dayna bay isweydiiyeen maxaaba uun maalinba nin boqoro loo saaraya maynu inaguba meesha qabsanno shajaratu dur islaantan la yidhaahdaa waxay ahayd qof dumara bay yidhaahdaan oo geesiyada oo dhiiran oo caqli badan bay yidhaahdaan bay ahaan jirtay iyana xisaabaadkeedii waxay isugu geysatay oo weliba qiyaadada iyo xikmad badan ku leh oo waxaynu ka garan karnaaba fitradii uu ninkaasi maqnaa siday wax usii maamushay waxaanay aragtay inay nimankan laftoodu ay taageerayaan aan warkooda soo koobo habartaasi waxay qaadatay inay iyaduba boqorad noqoto nimankii mamaaligtina waxay tidhahdeen kolle islaanta hadhow way iska riixi karaysaane bal horta cadhadan hore ninkan loo qabayo waxaana kaga gudubteene meesha ha qabsato iyana waa taageereen mamaalik albaxriya oo taageersan ayay habartii iclaansatay inay waddanka madaxweyne ka tahay waa awal dawla islaamiya habare ay tidhaahdo madax baan ka ahay ee taariikhda hore islaamiga lagu soo maqlo dee adduunkan mu ahayne waa islaba rogtay qayladii baa badatay dabeetana magacyo badan bay la baxday waxaa caan ahaan jirtay boqoradu inay laqab la baxaan magac bay la bixi jireen waxay la baxday malikat almuslimiin alsaalixiya boqoradii muslimiinta ee saalixiyada ahayd saalixadu waa almelika saalix najmudiin bay u nisbo sheegaysa odageedii dhintay laakiin lama aqbalin markaasay haddana ka bedesho waxay tidhi malikat almuslimiin alsaalixiya waalidatu sulطaan khaliil amiir almu'miniin kii yaraaya ay dhashee dhintay ayay isna magaciisa meesha ku soo dartay haddana waxay aragtay baa la yidhi inaan la aqbalaynin markaasay haddana sii kordhisay waxay la baxday laqaba malikat almuslimiin almustacsimiya alsaalixiya waalidatu sulطaan khaliil amiir almu'miniin boqortooyadii islaamiga ahayd ee baqdaad ka jirtay waa intii aanay weli dhicin ayay u nisbo sheegato mustacsimi bay sheegatay anigu amiirad yaro meel haysataan ahayd ee khaliifadii guud mayhi bay rabtaa inay tidhaahdo laakiin warkaasi ma u eg yahay war ay aqbalayaan muslimiintii waagaasi noolay warkaa lama aqbalin mudaharaadaa ku kacay magaaladii baa buuqu badatay markaasay tidhi yaanu dabaddu warka u bixin oo magaalooyinkii muslimiinta hore albaabo laga galay lahaan jire albaabaday dadka ku xidho waxay tidhi bal tuulooyinka warkan iyuu gaadhin hala joojiyo laakiin waktiga kani ma ahayn wakti dumar wax hungareeyo dee beriguu noolaa raggii ragga ahna u ahaa sulطaan alculamaa baa joogaa ciizadiin ibnu cabdisalaam ninkii la odhan jiray ee baayic ilmuluk boqorrada iibiyey sulطaan ibnu alculamaa iyo rag la midaba manaabiirta u baxay dabeetana islaantii xaalkii wuu u sugmi waayey boqorkii ay isku magac dartay ee mustacsimkii haystay baqdaadna
isna ma aqbalin habar baa madaxe waraaq buu soo diray waraaqda uu soo diray isaguna wuxuu ku soo qoray in kaanat الrijaalu qad cudimat cindakum faaclimuuna xataa nusayira ilaykum rajula masr buu yidhi reer masarow haddii meeshii nin rag laga waayey ii soo sheega nin idiin soo diree buu yidhi boqorkiina waraaqdaasuu soo diray taasi waxay abuurtay markaa inaanay u suurtagal ahayn islaantan inay wax xukunto haatan waxay qaadatay haddaba fikrad kale inay magaca ka daadegto laakiin ay xagga dambe wax ka maamusho waxay istidhi nimaad xukumi karto oo magac nineed wata laakiin xiniye adigu aada u sido kaa meesha kaan ba istidhi oo nimanka xooga badan leh wax maamulo kuwa ka weeco waxay aqbashay markaa inay ka tanaasusho iyay uga tanaasuleysaa nimaan caa'ilad xooggan lahayn ayuubiyiinta iyo waxaa maaha nin mamaaligtan ka tirsan weliba dee mamaaligtu isku mid maaha farisidiin aqطay iyo bibris iyo ragay xukumi karto maaha jananadii waaweynaaye meesha joogay markaa waxay damcday kuwaana inay ka weecato nimaan aad markaa caan u ahayn laakiin mamaalik albaxriya ka tirsan oo ciزadiin aybak la yidhaahdo oo asalkiisii horena jaashankiir buu ahaa jaashankiirku waa shaqo guriga qasriga laga qabto waa boqortooyada madaxda had iyo goor waxaa jira qolo cunadooda qaabilsan oo dhadhamiya si aan boqorkiiyo waxaa loo samey nimankan madaxda o dhan bahasha waa laga dhadhamiya iyagu ma bilaabaan mid baa jira soo dhadhamiyo haddii lagu sumoobayo isagu sumooba laakiin si aan madaxdu u sumoobin marka waagii hore shaqadan baabuu hayn jiray wuxuu ahaa jaashankiirkii madaxtooyada buu ahaan jiray ninkaasoo ayay istiri kan baad wadwadan kartaa dabeetana ciزadiin aybak bay guursatay waxaana yidhaahdaan wuxuu ka mid ahaa raggii aan ku caanbixin muranadii u dhaxeeyey jananadan iyo ciidamadan dawladda muramadoodii raggii aan geline iska degan waana nin turkumani loo nisbeeyo turkumanigu dhalashadiisii maha bay qaar yidhaahdaane waa wilaa nasaba wilaa cidqiya calaa kullin 80 maalmood kadib bay iscasishay dabeetana ninkan baa madax noqday jumaad alaakhira oo 648 ayaa waxaa madax laga dhigay dawladdii masar ciزadiin aybak ciزadiin aybak waa addoon la xoreeyey laftiisu laakiin dadkii waxay u arkeen waarun hadday qofkan dumari meesha ka tagtay bal waa lagu sii meel gaadhi karaa baa loo arkay qoladan mamaaligtaahi laftoodu umay arag nin xooggane waxayse lahaayeen isaga laftiisa waa mid ay iska weecin kartaa waktiga kan hal sano gudaheed bay masar markaa maraysaa 4 madaxweyne odaygii ayuubiga ahaa najmudiin ayaa dhintay inankiisii baa la dilay shajaratu dur baa la casilay ciزadiin aybak ba hadda kii afraada waa sanad gudihiiba 4 madaxweyne la maraya ciزadiin aybak laqab buu la baxay almuciz baycadii baa la siiyey shacabkiina waa aqbaleen isna wuxuu isku dayey inuu awraaqdiisa ratibto ciidamo cusub buu qortay mamaalik albaxri wixii ka soo raaci karayna wuu ku darsaday ciidamadiisa cusub nin dhallinyaro ah oo geesiyo cusub ayuu madax uga dhigay waa ninka la yidhaahdo markaa sayfadiin qutus ninka aynu u soconno inaynu taariikhdiisa ka waranno ee goobaha tataarka jebinaya waa wiilkan yar markaasi ee la soo dallacsiiyey ee uu ka dhigtay almuciz jananka ciidamadiisiiya uu u dhiibtay waa markii ugu horreysay taariikhda duhuuru ku yeesho ayuubiyiintii shaam joogay kumay qancin qadiyadda tan ee waxay isku dayeen masar innagaa iska lahayne waa maxay addoomahan iyo waxaan qabsaday iyo dumarkan isugu tegey aan ku duulla bay yidhaahdeen weerar bay soo qaadeen ciزadiin aybak laftiisaa ka hor tegey meel zaqaaziqda halkan la yidhaahdo meel u dhow alcabaasiya macraka la yidhaahdo la galay waa jebiyey boqorkii joogay
baqdaad baa soo hadlay heshiis baa laga dhex riday heshiiskaasi wuxuu noqday markaa falastiin in loogu daro ciizadiin aybak khaliifadiina inuu ictiraafo marka ciizadiin aybak hadda saxiixii boqortooyada ee muslimiinta khaliifadana uu helay marka waa boqorkii rasmiga ee meesha laakiin taasi waxaanay u qurqursamin shananadii isaga ka hooseeyey dee dowladdan guulaheeda keenay siiba ninkii la odhan jiray farisudiin aqtaay oo ciidankii markaa mamaalik albaxriya ninkii ugu sarreeyaya ninkaasi boqorkan maba ictiraafin alimaam almaqrisi fi kitaabi asuluuk limacrifa duwal اlmuluk wuxuu leeyahay xaqiraad uu xaqirayo aybik wuxuu ka gaadhsiiyey buu yidhi inuu alqaabtiisaba ugu yeedho almuciz iyo melik iyo waxa uguma yeedhi jirine yaa aybak buu odhan jiray buu yidhi markuu u yeedhayo maxaad u malaynaysaa jananka ciidamadaada ama wasiiru difaacaga markuu u yeedhayo hebelow ku leh madaxweyne iyo waxba toona raacinaynin xaqiraad weliba daraaddeed aan saaxiibtinimo ahayn aybak wuxuu go-aansaday ciizadiin aybak boqortooyadan sidii u xejin lahaa mamaaligta waxaynu dhe takhalluska agtooda wax weyn kama ahayn wuxuu go-aamiyey markaa wixii kasoo horjeeda inuu ka takhalluso dabeetana janankii ciidamadiisa haystee farisudiin aqtaay la odhan jiray buu ka takhallusay markuu janankaasi dilay ayay habartiina shakiday waxay istiri wallahi ninka farisudiin aqtaay kow kaga siiyey inaanu xukum iyo waxba toona kuu ogolaanaynin waa shakiday almamaalik albaxriya ninkii ugu weynaa markii la dilay jananadii ku xigay waa baxsadeen ciidankii mamaaligta ee baxriga ahi wuu kala daatay qayb ka mid oo badani waxay u carareen dawla layuubiya dhankeedii oo weliba ka mid yahay ninkii ninkan ku xigay ee bibris la odhan jiray ilaa dimashq buu tegey mar kalea waxaa soo dhex galay boqortooyadii baqdaad ka telinaysay oo isku dayday inay heshiisiiso waxaa ku heshiisiiyey mamaaligtan baxriga ee shakiday ama yaacday inuu falastiin dejiyo ghaza inuu dejiyo isaguna boqorkii meesha haystay inuu noqdo dagaaladan laga soo maamulayo dhanka kana in laga daayo halkaa markay arrintu marayso oo ninkii uu meeshii xejistay ayuu damcay inuu sii xejisto si looba ictiraafo boqor ka mida boqorradii ayuubiyiinta ayuu xidhiidh la sameeyey waxaanu ka dalbaday inuu inantiisa siiyo waa ninkii la odhan jiray badrudiin lulu aynu inta badan soo marray muusil haysto oo aan nimanka fiican ka mid ahayn ee tataarka ku xidhaa buu ka mid ahaa kaasuu inantiisa dalbaday islaantii aynu xikmadda iyo caqliga badan ku sheegaynay markay arrintan maqashay caqligiiba wuu ka tego hinaasaa qaaday dabeetana waxay go-aansatay iyana inay ciizadiin aybak disho wixii dhacayaaba ha dhacaan igan boqorka ee odaygeeda ah inay ka takhallusto ficlan waa sidii wax la heshiiyey iska dhigtay waa u yimi ciidan bay meel ugu qarisay tafaasiil waxba geli maaye iyana isagii bay ka takhallustay ciizadiin aybakna markaa waa la dilay meesha waxaa la soo dilay baynu idhi tawraan shaah waa la dilay shajaratu dur waa la casilay ciizadiin aybak oo ka dambeeyey waa la dilay farisudiin aqtaay waa la soo dilay imikana ciizadiin baa takhalluskiisii taagan yihi janankii ciidamadiisa sayfadiin qutus ninkii la odhan jiray ayaa meeshii dib u qabsaday inan yarow ciizadiin aybak dhalay oo cali la yidhaahdo wiil yaroon weli qaan gaadhinba buu kursigii saaray habartiina wuu soo qabtay habartii waxaa lagu xukumay in la dilo taarikhyahanadu waxay dhahdaan malaa mamaaligta waktigoodii waa taqura ee dilka xaq mudatay in la dilo laakiin ariiqaday u dileen baa iyana fool xumay islaan kale oo uu qabay odaygan la dilay ciizadiin aybak oo inankan iminka boqorka laga dhigay dhashay ayaa arrinkeedii lagu wareejiyey islaana walba ka hinaasasanayd oo boqorka ka qaaday ayaa la yidhi la wareeg islaantaasaa la wareegtay iyana intay jaariyadihii u shaqaynaya hablihii u shaqaynaya isugu yeedho halka ku xidhxidhay ayay tidhi kab ku dila kabahan qaraafiicda la yidhaahdo kabaa jiray loox laga samayn jiro qabaabiib la yidhaahdo
oo maasirra dusha lagaga dhejin jiray looxa kuwaasaa loola baxay habartii shajaru durre ee cilmiga aqoonta badnayd iyo caqliga badnayd iyana kab qaraafiica lagu dilay sidii kabtaa loogu garaacayay sidii boqorkii aynu ku soo marray khaliifa alcabaasi haraatida ku dhintay say tasaarku haraati ugu wadeen shajaratu durrina haraatidaasaa lagu dilay kabtaa looxaaya baa lagu dilay waa ariiqa nisyaaniya bay yidhaahdaan waa qaab aan runtii u cuntamin in qof bini aadama loo dilo laakiin saasay ku dhimatay arrinkii wuxuu marayaa markaa masar oo wiil yar uu madax ka yahay oo nuuraddiin cali la yidhaahdo gacantana uu ku hayo oo wasiy uu u yahay sayfaddiin qutus nin la yidhaahdo sayfaddiin qutus waxaynu odhan karnaa marka kan waa alxaakim alasliy ee maamula dowladda waddankan ka talinaysa waa alxaakim alasliyi dowladdan maamula waxa uu markaasi sameeyey inuu dejiyo dowladda tan qutus waa kuma haddaynu isweydiino ninkani xagguu ka yimi isagu taarikhyahanada muslimiintu waxay isku waafaqsayiin taariikhda muslimiinta raggii soo maray ragga ugu waaweyn inuu ku jiro waxay yidhahdaan magaciisa dhabta ah maxmuud ibnu mamduud baa la yidhahdaa maxmuud binu mamduud baa la yidhahdaa bay yidhaahdeen waa nin qoys boqortooyo asalkiisu ka soo jeedo ninka kan waxaa la yidhaahdaa waxaa hooyadii dhalay boqorkii baxru qaswiin ku dhintay ee moxamed alkhawaarzimi ee dowladdii khawaarzimiinta la soo jebiyey ama waxaa abtigii iyo hooyadii la walaal tahay jalaaladdiin alkhawaarzimi ninkii tataarka afghanistan labada jeer ku jebiyey ee kadib la soo kaceen ee sindi ka tallaabiyeen ee xaggaa iyo indiya orodka ku galay kaasaa abtigiiya kaas dadkii la socday buu ahaa isagoo yaroo carruurah kaa markii la jebiyey reerkiisi iyo wixii oo dhan waa la qabtay wixii la layn karayey way laayeen midhadh carruura iyo dad noocaasa addoonnimo loo kaxaystay wiilkan yari wuxuu ka mid ahaa dagaaladii markaa ka soo dhacay qaybtaasi dadkii addoonsiga loo soo kaxaystay akhiiran suuqii nakhaasa baa la geeyey suuqa dadka lagu kala iibsado waa la iibiyey gacanba gacan bay u soo dhiibtay iib buu dimashq ku soo galay dimashq baa haddana mid kale ka iibsaday waa la waday masar buu iib ku galay masar baa haddana waxaa iibsaday ciizaddiin aybik waa soo koriyey akhiiran jaranka ciidan ku noqday ninka kani marka hore qoys boqortooyaabuu ka dhashay kadibna wuu jabay kadibna waa la addoonsaday bariga muslimiinta laga keenay isagoo addoona masar baa addoonnimadii lagu keenay ilaahay qadartii kii unba haddana meesha dib u koray oo noqday markaa jaranka ugu weyn ciidamada waddankan haysta qutus waxay yidhaahdaan waa nin koow guri boqortooyo ku koray abnaa'i almuluuki walumaraa walqaada waxay yidhaahdaan jaaniska inay qaadan noqdaan way ka tiro badan tahay dadka caadigaa jaaniska inay qaadan noqdaan waa culamadan leadershipka iyo managementka ka warrantaasaa sheega waayo ninkan kani guriga uu ku koray hadduu iyo guri wax laga maamulo inta badan kuwaasaa noqdaa dee duwalka maanta joogaba orod sturdinkaa eeg ama wasaaradaha eeg ama caynkan eeg waa dad ku soo koray guryo maamul jaaniskoodu wuu ka badanya inay maamul qabtaan dadka kale ee caadigaa jaaniska ay wax ku maamulaan ninkani waa gurigaa umaruu ku soo koray marka koowaad marka labaad mamaaligtii masar lagu tababaray waa nin ka mid ah oo dowraadkaa diinigaa iyo kuwa caskarigaa iyo kuwa qiyaadigaaba soo maray waa nin askarinimo rasmiyana loo tababaray waa nin markaa kalsooni nafeed leh oo sida tana askari dhaba ah wuxuu ku talagalay inuu meesha tan dejiyo hawraad baa waddanka ka bilaabmay kacdoomo ay ka mid yihiin shajaratu durri kuwii iyada la xisbiga ahaayee ka soo hadhay mamaaligtii baxsatay almamaalik albaxriya oo uu hogaaminaya nin la yidhaha sanjari alxalabi
sanjar alxalabi waa mamaalik albaxriya buu ka tirsanyey waxaanu rajaynayay ciddadiin ayba gadaashay inuu isagu madax noqdo laakiin waatan wiilka yar la saaray dabeetana dhaqdhaqaaq milatariya tawrad buu sameeyey qutus baa qabtay oo wuu xidhay wixii kale rabshado wadoo dhan wax carara iyo wax la xidhay bay noqdeen mamaalik albaxriya waxoogaa ka soo hadhay qaybo ka midi dib bay u yaaceen ayuubiyiintii nin ka mid ah oo muqiisudiin camar la yidhaahdo aynu hore u soo marray markaynu ka warramaynay dawla ayuubiya waa kark meesha la yidhaahdo meel yaroo urdun ku taalluu madax ka ahaan jiray waxay idhaahdaan nin hunguri badan hunguri siyaasiyo weyn loo itaal yar buu haddana ahaa ayaa waxa qaaday hunguri ah war masar ayuubiyiintii waatan laga qaaday nimankan isdildilayaa qabsaday maad adiguba ku duushid mala waad qabsan karaysaaye wuu soo duulay 655 waxaa ka hortegay sayfadiin qudus ciidan uu hogaaminayo wuu jebiyey mar labaad haddana rabiicu laakhar ayuu dib u soo duulay 556 marka labaadna waa la jebiyey marka labaadee uu soo duulayo mataqaanaa waa baqdaad intii la qabsaday 2 bilood kadib yacni siday u fakerayeen nimankan iyo maskaxdooda u qaldantay iyadoo caasima khilaafa almuslimiin la qabsaday ayuu tataar kuma duulin ama wax iskama celina dawlad yaroo muslimiin oo meel kale ka jirtuu duulimaad u siiyey 2 bilood kadib baqdaad oo la haysto 2 bilood oo maratay ayuu xagga baqdaad uma jeeday wuxuu u jeedaa inuu masar soo qabsado laakiin markan kale haddana dib baa loo celiyo waa la jebiyey waxaa bilaabmay marka wiil yaroo masar haysta iyo ninka qutus la yidhaahdo ficlan taliyaa rasmigaa ah iyo holaaka oo dagaalkii soo wada oo shaam iyo dhulkaa inteeda badan soo qabsaday oo markaa xalab maraya halkaa markuu marayo ayuu wuxuu u arkay qutus inay arrintu khatar tahay oo 3 dhibaataba ay waddanka ka jiraan tataarkii oo soo socda iyo mamaalik albaxriya oo thawraad wada oo gudaha casaakirtii rasmiga ee dawladdu lahayd oo inqilaabo isku daydeeya iyo ayuubiyiinta iyo shaam oo mar walba soo socda oo soo dagaalgelaya wuxuu arkay meeshu inay u baahan tahay maamul rasmiya inanka yarina inaan wax maamulaynin markaa kadib bay yidhaahdaan markuu rag badan la tashaday wuxuu go'aansaday wiilkan yarna ee magacuyaalkaana inuu meesha ka duwo dabeetana uu meesha si rasmiya u qabsado sayfadiin qutus 24 dilqacda 657 ayuu markaasi masar qabsaday markuu masar qabsaday wuxuu bilaabay dagaal ah inuu u diyaar garoobo tataar sidii uu u jebin lahaa caqligan yare hoose inqilaabaadkan iyo waxaana sidii looga bixi lahaa inuu musaalaxa raadiyo ayuubiyiinta la heshiiyo mamaalik albaxriya la heshiiyo siyaasa alkhaarijiya waddanka uu dhiso maxaa la yidhahdaa xataa kristankii haystay tuulooyinka tirada badan leh ee dagaaladan soo qaaday inuu la heshiiyo inuu isku dayo dagaalkiisa inuu ku wajaho tataar waxa dadka ka soo hadhay ama kristan ha ahaadaan ama muslim ha ahaadaan si kastoo loo col yahay inuu heshiisyo la geli doono waxaan isku dayi doonaa markaa dariska dambe inaan ka bilowno tataarkii oo duulimaadkoodii soo wada iyo qutus oo qabsaday magaalada masar iyo dagaalkii caynu jaaluud sidii ugu diyaar garoobay maantana aan halkaas kaga joojiyo assalaamu calaykum waraxmat ullah دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت سمائي دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت